واتاي داوديال صاحبيال وبرنامج gaar ah oo ugu talagalnay maalinta SYL Somali Youth League oo iyadu foodan ugu soo hadii Allah wadali ogolaado inagu waliba barnaamijkan madal isagu marka kaga dhignay koox iyagu marka ku caan baxay activity-ga ama iyagu marka hawlaha u adeegida bulshada ku dhaqan magaalada Seattle Washington oo iyagu barnaamijkan caawa iyagu marka si wanaagsan oo lixaad leh kaga qayb qaadan doona hadii ay biidmo waxa galbiyeeda fadhiya rag wada garanaysan wajigooda ay ku cusbayn oo marka aad codkooda maqashaan aad wada garan doontaan shakhsiyaadka iyo waliba qofka ay yihiin iyagu mudan in badan aanu ku raadinayna barnaamijkan lamida iyagu marka inay soo fariistaan oo ay ku qada dhigaan inagu waliba maanta fursad gaar ah kaga helnay barnaamijkan oo isagu ah barnaamijkii loogu talagalay SYL Somali Youth League ama maalinta dhalinyarada qobosida u yaqaano ama aan iraahno guddigii ama groupkii xornimo doonka Soomaalida oo xorriyada Soomaaliya iyagu markaa dhaliyay qobosida u yaqaano waxa garabkayga midig fadhiya Cabdinaasir Maxamed Cali Shaqaale ayaa isagu ku xiga Ahmed Bahaaj ayaa isaguna dhinacayga midig fadhiya Ahmed Cali Ahmed Curo loo yaqaano ayaa isaguna ku xiga Ilyas Xayuuke Waasir Xayuuke ayaa isaguna geeska ka fadhiya barnaamijku wuxuu noqon doonaa barnaamij isagu markaa round table ah oo su'aaluhu ay noqon doonaan kuwa markaan is dhaafsan doono hadii ay biidmo inagu walibana isagu markaa qof ka jawaabayo qofka kalena isagu uu qaadan karayo oo aanu ahayn wareysi gaar ah ama face to face markaan uu ka qayb qaadan doono waa barnaamij isagu munaaqasho noqon doona hadii Allah wadali ogolaado waana barnaamij isagu markaan uu Google xaari doono hadii Allah wadali ogolaado 15 May oo foodan lagu soo oo barnaamij qurux badan marka loogu talagalay oo magaalada Seattle dhan ay wada daawan doonaan waxaan marka ugu horeysan ku hormarayaa Bahaaj oo isagu dhinacayga fadhiya balsida oo arkay SYL iyo waliba aasaasadoodii sida ay markaa iyadu ku dhalatay Bahaaj waxa la aasay ururka dhalinyarada waxay sameeyeen May 15 xilliga hadda aan ku jirno maanta waa May 11 in 4 days afar maalin ka bacdi waxaan la aasasay 1943 waxayna ahaayeen 13 qofood marka waxaan la dissolve gareeyay 1969 ideologigooda wuxuu ahaa dad oo xornimo doon ah Somali nationalism headquarterkoodan wuxuu ahaa Muqdisho Soomaaliya shaqaale isla same question aan ku laabano mar kale isla wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii SYL hadafkoodu muxuu ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan mahadleeyahay hadafkooda ugu weyn wuxuu ahaa 13 nin markay isku imaanayeen in ummadda Soomaaliyeed ay u sheegaan inuu gumeystaha uu yahay dad ayagoo kala ah ayna yihiin dad soo gumeystagay rabana inuu dhaco hantidooda dalkooda iyo dadkooda intaba ay ahaayeen markii aan ka hadlayno SYL ma ahayn 13 qof oo kaliya ma ahayn boqolaal oo kaliya dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan guud ahaan geyiga Soomaaliyeed way ka galgasheen waana ay ka dagaalameen hayeeshee wuxuu magacoodu ku dhacay ama magaca SYL iyagu markaa iyagu unkay ama udbaha u dhigay 13 dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu magacii iyo maamuuskii SYL iyagu markaa qaatay ururka xornimo doonku waa SYL Somali Youth League waxa uu isagu ka jiray mar kale aan ku celiyo geyiga iyo waliba guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed hayeeshee SYL ayaa hoggaanka u haysay xaruntooduna ay ahayd magaalada Muqdisho waxaan ku laabanayaa Ilyas Xayuuke oo aan maleynayo inuu isagu qada dhigi doono qayb badan oo kamid ah barnaamijka aan mar kale weydiiyo maxay qabteen SYL Ilyas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeyso anigoo ka faa'iideysanayo fursadan waxaan rabaa inaan salaan guud aan hawada halkan ugu mariyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto SYL horta waxaa la aasaasay 15 May 1943 waxaana aasaasay group dhalinyaro ah oo hadafkoodu ahaa sidee dalka Soomaaliya ugu saari karnaa gumeystiga wadanka Soomaaliya wuxuu ku jiro waqtigaas gumeysi oo wadamadan reer galbeedka ay gumeysanayeen ma jirin ururo dadka xuquuqdooda ayadoona si xabad la ridayn ugu dagaalamo waxay midayeen hadafkooda
waxay isku keeneen ra'yigoodii Soomaalinimo markaas ayay waxay sameeyeen runtii arrinaan rab inaan ka taabto waxa kamid ah ugu cajaa'ibka badnaa dhalinyaradaas markay isku yimideen ururka ay rabeen inay soo register gareeyaan ayay waxay u tageen gaalkii markaas wadanka gumaysanayay waxay dhaheen waxaan rabnaa ururkan oo ah urur siyaasi ah oo Soomaali ah oo u doodaya dadka Soomaaliyeed sida ay gumaysiga ugu bixi lahaayeen inaan register gareyn waxa cajaa'ib markaan runtii aan aad u kurgalay iga yaabay waxay ahayd gaalku wuxuu yiri sidee ku midoodeen kala qabaa'il kala Soomaali waa taqaanin hadafyadiina waa kala duwan tihiin dadkiina kala nooc ah sideed ku midoobaysiin oo aad hal u ahaanaysiin Soomaali waa aqaanaay marka waxaan u maleeyaa markaan fiirsho xaaladda maanta dadka Soomaalida ku jirto iyo markaad gadaal u eegto dhowr iyo 70 sano oo maanta ay ka soo wareegatay maalintii la aasaasay SYL inaad u maleyso in dadku ay waqtigaas Soomaalida waqtigaas joogay horta ay ka yara firfircoonayeen ay kaga fiicnaayeen Soomaalida iyo midnimada inkastoo gumaysi ku jiraan kuwa maanta joogo ee wadankii yaraay ee shanta markaas ahay balse noqday labada oo waqooyi iyo ay soo hartay maaragtay iyo koonfur oo NFD meesha ka baxday oo gobolkii kale oo Soomaali galbeed meesha ka baxay oo gobolkii kale oo maaragtay Djibouti meesha ka baxay in labadii maanta ay noqdeen koonfur iyo Soomaali kala go'day haddana koonfurtii la rabo in loo qaybiyo 25 qaybood hadafka dhalinyaradaas ay ku fikirayeen oo ay ku higsanayeen in Soomaali ay xoreeyaan oo ay hal ka dhigaan maanta xabeebow dhalinyaradeenna maanta joogto waxaad u maleysaa in ay noo noqoto inaan dib ugu noqono oo homework u qaadano SYL sidii ay waagas ku mideeyeen shacabkii Soomaaliyeed in maanta looga baahan yahay bulshada Soomaaliyeed inay hadaf jidkay u mareen waa tahliyaas aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aan ku laabto Axmed Cali Axmed Curo loo yaqaano Axmedow SYL marka aan guud ahaan waxay ahaayeen iyo hadafkoodii aan ka hadalay maxay qabteen oo la taaban karaa maxay qabteen Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore fursadan qaaliga ah aad aan ugu faraxsanahay oo ujeedadana ay tahay midnimo Soomaali in laga hadlayo iyo qaabkii maartay ay ku soo dhaqan gashay midnimada Soomaalida ahayd marka la eego asaaskii ururkii SYL waana laga soo hadlay oo maartay qaybaha ugu horeeyay ujeedada loo asaasay waxay ahayd in maartay loo helo Soomaali oo xur ah in la helo ayay dhalinyaradu u asaaseen taasi waxa sabab u noqotay markii dhalinyarada ay soo imaadeen dhalinyarada markay soo imaadeen oo arintaasi ay damceen inay suurtageliyaan waxyaabaha ay ku heshiiyeen ayaan rabaa inaan halkan ka sheego mid ugu horeysa ayaa waxay ahayd in loo halgamo wadanka midnimadiisa iyo sida loogu xureyn lahaa maxay ahaday dadkii waqtigaasi gaalada gumaysanaysay waa mid ugu horeysay tan labaadna waxay ahayd in shanta Soomaaliyeed la mideeyo oo meel walba ay joogaan ay ku jiraan maaragtay NFD ay ku jirto iyo maaragtay dhinaca Ethiopia qaybta ahana ay ku jirto iyo Djibouti marka hadafkooda ugu weynaa kaas kan labaad taas u ah tan saddexaad waxay ahayd in xoog la saaro tacliinta oo waxbarashada in la xoog la saaro gaar ahaan sidii maaragtay afka Soomaaliga wax loogu bari lahaa dadkii oo maxay ahaday bulshadii loo dhaqan gelin lahaa tan afraadna waxay ahayd in shacabka lagu baraarujiyo halganka iyo gobonimidoonka naftirkiisa in lagu baraarujiyo dadkii la ogeysiyo sababaha muhiim u tahay in maaragtay loo istaago taasi oo ahayd guusha ugu weyn waxa keentay in laga guuleysto markaasi maxay ahaday dadkiina gumaysanaya markaad eegtid qodobaha ay ku heshiiyeen dadkaasi intay fariisteen dhalinyaradaasi waxyaabaha u suurtageliya waxay ahayd dhammaantooda waxay heshiis ku noqdeen hadaf oo saarayay focuska in midnimo la helo ayna u wada dhan yihiin Soomaalida dhammaan marka taasi ayaa waxay la tahay in maaragtay ay fududeysay in ayagoo kala luqad ayagoo isku luqad ah laakiin ayagoo kala qabiil ah dadkii meel isugu imaadeen haddana se ay hal ra'yi iyo hal fikrad ay wada lahaayeen oo in dadkii dhalinyarada dadka wax la baro in dadkii maaragtay la xusuusiyo waxay midnimada ay tahay iyo in dhammaan maaragtay dadkii ay usoo wada halgamaan oo maaragtay aysan noqonin 13 kaas qof shakhsiyaad kaliya aysan ku koobnaanin
marka waxay ila tahay in movementkii noocaas ahaa ay u fursad u yeeshay ama ay u fududeysay in arrintaas lagu guuleysto waa tahay bal markana cabdinaasir maxamed cabdinaasirow bal maxaad nooga sheegi kartaa iswael asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u dirayaa salaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin adduunka dacaladihiisa SYL maadaama ragga miiska fadhiiba ay soo koobeen wixii aan sheegi lahay waxaan u maleeyaa in ay ahaayeen urur u soo halgamay xornimadoonka Soomaaliya ah dad oo waqtigoodii iyo maxay ahayd dhiigoodii iyo naftoodii inay u huraan wadanka Soomaaliya si ay ugu qaadaan gumaysigii iyo maxay ahayd dhibaatooyinkii marka ayda yaalay maxaan ka baran karnaa amaba nooga filan inaan cashir ka qaadana dadka ayaga ahay waa shay muhiim ah in aan ku cibri qaadana ama aan ka helna waxbarasho oo nooga filan dadka ayaga ahay waxaan u maleeyaa in ay ahaayeen jiinkii ugu wanaagsanay oo soo maray qowmiyadda Soomaaliyeed marka taa waa shay oo xusitaan mudan 15 May waa shay oo muhiim u ah Soomaalida meel kasta ay ku nooshahay marka insha Allah waana tahay daawadayaal barnaamijkan ayaan mar kale idin xusuusinayaa inuu isagu buddigiisa uu yahay ama aan ugu talagalnay inaan wax ka barano urur weynihii SYL Somali Youth League oo isagu markaa Soomaaliya gaarsiiyay xornimadii iyadoo markaa taamka ahayd ee aad wada maqasheen ka nasiib ka nasaar haddaba qof walba oo Soomaaliya marka laga hadlayo xornimo wuxuu isagu markaa soo xusistaa in la soo dagaalamay in gumaysi markaa gacanta la saaray in rag fara badan ay dhinteen laakiin ujeedadu taamahan ujeedadu waxa ay tahay yaa soo halgamay dadku soo halgamay kumay ahaayeen maxay u halgameen hadafkoodu muxuu ahaa goormayse ka dhabeeyeen ujeedkooda isugu yimaadeen oo iyadoo ahayd inay mar qura yarkaan calan Soomaaliyeed oo xor ah oo isagu markaa hawada Soomaaliya ama ciidda Soomaaliya ka babanaya iyadoo taanu ka duulayno ayaanu maanta waxaanu fursad u yeelanay mar kale daawadayaal saaxiibayaal inaynu la fariisano dhalinyaro iyaguna sidaa oo kale iyaguna isku abaabulay isla markaana dhexdo u xirtay inay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan majaalida Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Seattle Washington iyo iyagu markaa kaga gudbiyaan dhibaatooyin fara badan ama markaa ay u dhisaan buundo ama bridge iyagu markaa kaga gudbi karaan dhibaatooyin fara badan oo in muddo iyagu hayay ururkan waxa lagu magacaabaa SAPAC waa Somali American Public Advocacy Committee oo iyagu xaqiiqdii wax badan soo qabtay marka laga hadlayo umuuro fara badan haday noqon lahaayeen kuwa marka isagu istidku go'aamo ay ka gaareen iyagu marka ka qayb galay seminaaro gobo badan iyagu marka lagu wareysay iyo waliba doorashooyinka iyagu wadankan ka dhacayay iyo kuwa haatan foodan ugu soo hayba hadii Allah uu daliyo ogolaado waxaan mar kale aan ku laabanayaa Ahmed علي أحمد عرو waxa ujeedada SAPAC ay marka iyadu ay kaga suntan tahay ama ay kaga dhowdahay SYL ama ujeedka ay isugu yimaadeen as SAPAC balana wax nooga sheeg waa mahadsantahay xabeeb fursadan labaad ay siisay maadaama aan ka soo hadalnay SYL SAPAC hadaan usoo noqdo waxyaabaha aan kaga mid ka nahay oo waxay tahay in midnaba buuxda halka laga sameeyo oo ah in Soomaalidu dhamaanteed ee hal cod ay wada yeelato oo halkaas cod ay dhamaan ay maartay ay hirsanayso mid kale ayaa waxay tahay in si gaar ah maartay dhalinyaradii Soomaalida loo eego si looga badbaadiyo dhibaatooyinka maartay ay la kulmaan xilligan xaadirka ah in maartaasna ayaa ah mid labaad oo maartay aan kaga mideysanahay waxyaabihii hore u soo dhacay tan ugu saddexaad ayaa waxay tahay wadankan aynu joogno sida kaliya oo wax lagu heli karo qofka uu xaqiisa ku heli karo waa in codkiisa la maqlaa oo maartay codkiisa uu noqdo cod sareeya oo dadkii dhamaan ay maartay ka mideysan yihiin si ay aga uga mid noqdaan codkaasi marka SAPAC maxay aheeday ay ballan ku qaaday in arintaasi ay noqoto mid guul ah ayna maxay wacyigelin dadkii Soomaaliyeed ay u sameeyso gaar ahaan dhalinyaradii iyo maaragtay iyo waalidiinta iyo community-ga dhamaan ay isku xirto organizationada iyo maaragtay iyo bulshada sidii wax qabadkeeda loo maaragtay loo meel dhigi lahaa marka arimahaas oo dhan marka eegtid waxaan isleeyahay inaan kaga mid nahay ama se aan nologu qiyaasi karo waxyaabihii ay soo qabteen SYL waxaan ku wareegayaa علي الشقالة ويسقون قرب كي قبل فردية ونربينا ويديو سؤال يدرو تاو دقنتو SAPAC محوية هاي هدف كي يقوم مركا هيك سنة يان مانتا anigoo mar labaad ka faa'iideysanahay Johannes kan
su-aashan haddii aan laba nooc u kala qaado mid anigoo ku salaynayo ururkii s y l yacni xilligii s y l jirtay magaalada muqdisho keliya waxaa ka jira in ka badan 40 xisbiyood waxaan isku dayeen inay xisbiyadaas dhammaan ay mideeyaan annagoo mowqifkooda dib u eegayna because adduunyada waxaa taariikhda waxay ka tahay markhaati wax walba oo dhacana waxaa dib loogu noqdaa taariikhda annagoo taa ka duulayna saabaag ahaan waxaanu doonaynaa ama aynu rabnaa in aan isku keenno dhammaan ururada ka jira magaaladan magac kasta ha la ahaadaane sababtoo ah mowqifkooda ugu dambeeya ama meesha isugu soo biyashabanayaan waxay tahay inay wax u qabtaan ummadda soomaaliyeed saabaagna waxay asal u tahay inay wax u qabato ummadda soomaaliyeed iyo shacabweynaha la nool sida dadka deriska la ah oo kale waa tahay bal markale aan ku wareego cabdinaasir markii aanu ka hadlayno SAPAC iyo markii aanu ka hadlayno SYL waxaad moodaa inay yihiin laba urur oo midna maanta u dhisan yahay midna 79 sanadood ka hor asaaskiisu ahaa xilliga SYL ay jirtay waxaa jiray ururo fara badan oo iyaguna markaa pro Italian ahaa ama Talyaaniga iyagu markaa u horseedo u ahaa inuu sii jiro isla markaana diidana qaarkood in Soomaaliya xorriyad ay qaadato marka laga hadlayay 10 sano oo xornimo gaarsiinta ururo fara badan oo Soomaaliya ama shakhsiyaad iyagu markaa siyaasadda Soomaaliya caanka ah ayaa ku doodayay in Soomaaliya wali aanay gaarin in ay xorriyad qaadato marka aanu ka hadlayno SAPAC haddan taagan wali waxaynu ku noolahay dalkii ama wadan Mareykan isugu laakiin dad badan oo Soomaaliya ku nool yihiin ururo fara badan marka ay kala duwan iyagu marka ay ka jiraan Soomaaliya meel walba uu joogto sidoo Ilyas Xayuuka u sheegay markay u tageen ninkii Talyaaniga ahaa wasaaskii ururkii SYL wuxuu yiri sideed ku midoodeen sideebaad isugu keeni kartaan bulshada ku dhaqan magaalada Seattle Washington Cabdinaasir aad baa u mahadsan tahay xabeeb SAPAC Somali American Public Advocacy Committee waxaa muhiim ah inay ka ambaqaadaan waxaabihii laga bartay SYL halkaan ku noolnahay magaalada Seattle Washington waxaa ka jira dhibaatooyin iyo baahi aad baaxad weyn oo la soo koobi karin qowmiyadda Soomaaliyeed ee ku nool Seattle qaybo badan ayaa dhib weyn ayuu ka haystaa sida housingka sida maxay ahayd shaqo la'aanta sida qaybaha immigrationka waxyaalo badan ayaa jira qaybaha caafimaadka marka waa in aan u dagaalana aan raadina xaqa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool statekan in aan u raadino waxyaalaha xaqa u leeyihiin hadafka waxaa lagu gaari karaa midnimada Soomaaliyeed dhibaatooyin badan baa dhacay wadankii waa la isdilay burbur baa dhacay qaxooti baa la noqday waa la kala haaday wadamo badan baa loo kala qaxay taana wadamo badan oo Afrikaan bay ka dhacday sida Burundi Rwanda Congo marka waxaan u baahanahay in aan ku dayana wadamada qaarkood oo dagaalka uu ka dhacay oo haddana gaaray the truth and reconciliation sida aad arkaysid wadanka South Africa intaasoo sano ayay lisoo laan jiray dagaalaba ka jiray haddana way midoobeen Rainbow Nation bay sameeyeen waana dad wada nool oo wax wada qaybsada oo halgankooda mid u yahay waa inaan ku dayana SYL waxaalihii aan ka baranay we learn from the best marka in aan u adeegna bulshada oon ka bixina waxyaalaha oo xun oo sida qabyaalada ah ee ficilada qaabka daran aan ku adeegna midnimada Soomaaliyeed taa ayaan dhihi lahay maanta inay muhiim tahay waa tahay bal markan waxaan ku wareegayaa Ilyas ayaan u labanaya mar kale SYL maxay haleeleen maxaase haatan naga maqan oo aanu kaga dayanayna waxaan rabay horta wax yar inaan dib ugu noqdo ururka SYL horta ururka SYL waxaa la aasaasay sanadkii 1943 maanta waxaan ka joognaa 71 sano ururka SYL Soomaalida badankooda waxay u taqaanaa inay 13 ahaayeen laakiin xaqiiqiyan dadka xubnaha ururka SYL ka tirsanaa ee Soomaalida ahaa kumanaan kun waa ka badnaayeen waxay ahaayeen Soomaalida dadkii waqtigaas jiray ee wax fahmayay number aad u badan ayaa support gareynay kaaska oo SYL qalbi nadiifa dad waxay ahayn dad qalbi nadiif leh oo wadaniyiin Soomaalida maanta jirto Seattle sida walaalkii Xabeeb Cabdinaasir uu ka hadlay ururka Somali American Public Advocacy Committee oo ah urur ka dhisan magaalada Seattle
oo ah urur u dooda xuquuqda shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolkan waxaa jirto waxyaabo badan oo aan runtii muddadii sanadka ku dhawaad hadda ururkan u dhisnaan la aragnay oo community-ga meeshan haysto waxyaabo aad u badan sida Badar sheegay wuxuu ka hadlay iskuulaadka iyo guryaha laakiin waxaa jiro dhalinyarada xabsiga sida fudud ku galaayo caruurta Soomaaliyeed iyo waalidka waxay u baahan yihiin in ay wax badan fahmaan wadankan shuruucdiisa ee sida fudud ee caruurta Soomaaliyeed ee xabsiga ku gali karaan wadankan wuxuu qabaa shuruucyo badan oo u baahan yahay qofka inuu fahmo waxaa jirta arintii ugu yaabka badneed waxay ahayd wiil Soomaaliyeed ayaa wuxuu middle school dhigtaa wuxuu ku ordaa la yiri iskoolka hoolka dhexdiisa xabsigu intaas u galay macalinka riboodo ka bixiyay follow up laguma sameeyay maanta juvenalka oo magaaladan gobolkan Washington xabsiga dadka ku jiro nin madow Mareykan oo wadankan haysto madax wuxuu yiri dadka madowga ah ayaa xabsiyada u badnaa jiray hadda xabsiga waxa u badan ku jiro dadka East Africa imaadeen hadda ahaan Eritrea Soomaaliya ama Ethiopia annaga waa u badano marka waxa hadana nasiib darro ah markaad maqasho caruur hadda 6 bilood ka hor graduate garay oo jaamacad dhamay oo hadana xabsi galay simple marka waxaan qabaa waxyaabo badan oo waxa jiro xabaab waalidka ay u baahan yihiin inay ogaadaan caruuradooda ku sixi karaan oo crime-ka ay uga hortagi karaan iyo waxyaabo badan oo booliiska naftirkooda u baahan in laga educate gareeyo youth-ka arrimaha kale oo aan rabay inaan taabto oo dhibaato weyn ku ee community-ga waa shiishada especially xaqiiqda inaan ka taabto waxa waaye shiishada haweenka Soomaaliyeed gabdho badan oo yaryar oo Soomaali ayaa geedas aad u isticmaala waa jiro waxay keentaa cudurro badan haba ugu badnaado obesity-ga marka waxaan rabaa inaan ayada naftirkeeda aan jeclaa insha Allah May 15ka aad ka hadashiin arrimaha waxyaabaha bulshada dhibaatada ku ah oo community-ga runtii inaan xoogagaal u ahayn waxa kale oo rabaa inaan ka hadlo guryaha housing-ka Soomaalida inta degan badankood xabaab waxay degan guryo oo project oo low income ah saalo socotid xaafado badan waa la duminayaa waxa la dhisayaa guryo yar yar 3 qol 2 qol ala dhisayaa waxa loogu talagalay in community-ga Soomaalida si vote-kooda zone-ka ay u badan yihiin laga kala yareeyo ay ugu guuraan meelaha suburbanka meelsha u bateen sida hadda district aan deganaa waa district 37 Soomaalida number badan ku degan haddana markaad aragto qaabka hadda loola dhaqmaayo oo guryihii loo yaryaraynayo Soomaalida waa big family waxay keenaysaa in effect garayso marka waxay u baahan yihiin voice-kooda in naftirkooda laga hadlo arrimaha doorashada magaaladan mar walba markoo doorasho ka dhacdo Soomaalida waa la soo doontaa because 2 ama 3 shakhsi oo Soomaali ah oo shaqo raadinayo oo inuu shaqo rabo helo ayaa la soo wadanayaa dadkii vote-ka loogu shubayaa dib dambe looma arkaayo waxa muhiim ah qofkii shaqo inuu rabo inuu shaqo professional raadinayo iskoolha aad wax barto laakiin community-ga yaan la lugooynin dad badan ayaa jira oo community-ga ayagoo shaqo raadinayo u keeno dad ajnabi ah dad Mareykan ah oo vote-kii dhahay qofkan u vote gareeyo community-ga u shaqeynaa at the same time qofkaas markii oo vote-ka helo 4 years xabab dib ugu soo noqdo marka ayadana waa issue meesha taagan oo community-gu baahan waliba aniga waxaan endorse gareynaa waa ku dheeraad iga raalaada inay soo baxaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed wax bartay meeshan degan oo u baahan naftirkooda caawimaad marka dhalinyaradaas naftirkooda in la tusaaleeyo aan u ifteemino inay doorashada ka qayb galaan waa tahay markana Bahaaj ayaan ku wareegayaa SAPAC ahaan Somali American Public Advocacy Committee maxaad ugu tala gasheen dhalinyarada yaryarka ah iskuulaadka aada gabdhaha Soomaaliyeed yarka iyagu iskuulaadka markaa wada aada iyo kuwa iyagu markaa xabsiyada ku xiran anoo dareemi kar waliba inaad tahay shakhsi ka warqaba marka laga hadlayo youth-ka iyo arrimahooda bismillaahi raxmaani raxiim fursad labaad ay siisay aad u mahadsantahay xabeeb in la mideeyo horta waxaan ku hormarayaa mideynta Soomaalinimada waa very important waa arrintan waxay taabanaysaa ururka SYL haddaan noqono annaga dhalinyaro ahaan ururka SYL waxay ka mid ahaayeen 13 qofood annagana waxaan nahay ku dhawaad intaas numberka ahaan marka muhiimadeena waa mideyn in Soomaalida la mideeyo ku nool magaalada Seattle Washington marka aan u gudbo su'aasha xabeeb hadday noqoto ciyaalka ama youth-ka waxyaalo badan sida my friend xayuuka u taabtay
xabsiyada aan ku badannahay sida maaragtay youthkeena marka waa ka hortegi karnaa arrintaas as a sabag ahaan annaga waxaan diyaar u nahay inaan u qabano waxyaalo badan sida sportska inaan sanad walbo aan isku keenno sportiska dhallinyaradoo dhan inaan maaragtay aan fangareyno fankaasna aan ugu raadino City of Seattle marka the funding waa jira laakiin waxa u baahan yahay maaragtay in oo maaragtay waxaan u baahannahay inaan maaragtay soo diyaarino insha Allah hopefully this year waa diyaarineynaa and this summer waa maaragtay probably it's going to be August insha Allah marka arin midaas waa midda labaadna aan rabo inaan aad uga hadlo sida immigrationka oo xaqiiqdii anagoo dhan immigrants aan nahay originally aan noqono passport aan wada qaadano ama marka very important waxaa ah in aan dadkeena aan ka caawino sida maaragtay sida green cardada loo apply gareeyo ama sida passportada dad badan waxaa jiro sida youthkeena oo kale for example paperkooda ma xarayaan on time marka way effect gareynaysaa haddii aysan iyagoo green card holder ah haddii dambi ay galaan waa ku adkaanaysaa inay qaataan baasaboorka marka fursadaas insha Allah tacaala aan wadnaa in aan youthka aan barnaamij u sameyno Somali community aan ku sameyno barnaamijkaas aanan maaragtay aan ku talagalno youthkoo dhan inaan baasaboorada aan u dadejino aan u apply gareyno hopefully insha Allah soon waa tahay mar kale daawadayaal saaxiibayaal waxaanu ku soo laaban doonaa halgankii dheeraa ee SYL maadaama ujeedadu ay tahay 15 May maalinta dhalinyarada ama maalintii SYL maalintii ayagu ururkii xornimo doonka Soomaaliya iyagu markaa xorriyadda Soomaaliya gaarsiiyay sidaan hormeed ku soo sheegnay daawadayaal saaxiibayaal halganku waa u fara badnaa Soomaaliya idilkeed goob walba iyo waliba gees walba ayuu ka taagnaa hayeeshee SYL ay iyadu markaa u duubatay Somali Youth League in iyagu magaca iyo waliba hormoodka iyagu ay qaataan haddii aynu soo laabano halgankii dhagax tuur xawataako iyo halgamaa kale oo fara badan oo Soomaaliyeed oo iyagu markaa hadday dhagax tuuraan hadday dahabkoodii gadaan iyo waliba hadday iyagu markaa caanaha ay ka dabasadaanba iyagu suurtageliyay inay Soomaaliya mar kale xor noqoto isla markaana calankeedii hesho waxaan markana aan wax ka weydiinayaa shaqaale isagoo garabkayga fadhiya SYL maadaama iyagu ay hayeen 13 kuma keenay hadafka ama ujeedada isugu yimaadeen bismillaah haddii aan dib ugu laabto SYL yacni magaca hore SYL intaan la oran jirin ka hor waxaa isugu yimaada dhalinyaro hadafkana waxaa keenay wuxuu ahaa ninka ugu horeeyay Yaasiin Xaaji Sharmaarke Yaasiin wuxuu ku yiri waxaan dhisaynaa urur ama club soo dadka Soomaalida xilliga jooga waxay ahayn dad tiiba Talyaani ah ama dad tiiba Carabi ah dadka tiiba Carabiga xogaa the word of club xogaa way ka yara shakiyeen kadib wixii ayuu sharxay eragii waxaana la bixin magaca la yiraahdo SYL ka hor waxa la bixin SYC Somali Youth Club kadib waxay noqotay markii dadkii memberkii dad fara badan heleen ayay waxay magacii bedeleen oo waxay la baxeen SYL balse su'aasha waxay jawaabteeda ninka ugu horeeyay ee mowqifkan la yimid ama la abaabulo ururkan wuxuu ahaa Yaasiin Xaaji Sharmaarke waa tahay aan ku laabto mar kale Ilyas ma jirtaa in Cabdullaahi Ciise Rabbi naxariis janahasi iyo dhamaan intii SYL uu ka qayb gashay intii u dhimatay intii halganka dhaawac uu kaga soo gaaray inta haatan iyagu nool iyo intii geeriyootay Rabbi naxariis janahasi ma jirtaa in shakhsi isagu markaa u eg cirbad isaga dartii ugu dhacday si aan isagu wax loo xilo intaan xabeeb ka jawaabin su'aashaad waxaan rabay inaan wax yar inaan sii sharaxo arinta cali ka dhawaajiyay oo asaaska SYL marka taariikhdii waqtigaas jirtay aad si fiican u akhriso waxa ku soo baxay inay jirtay naadiyo dadkii wadanka gumaysanayay ee meelaha ku kulmaan ay lahaayeen meelahaas ay ku kulmaan waxaa jireen dad badan oo bro ama Italy ama Ingiriis aha ka Soomaaliya Ingiriis ayaa igana gumaysan jiray koonfurta waqtigaas kadib aad lagu wareejiyay dadkii oo gumaysanayay waxay qabeen dad ayaga la safan oo meelahooda naadiyadooda tago marka sida brother Ali Manshigareey group laba shakhsi oo ka tirsan 13 kooda ayaa waxay istuseen in ayaga ay samaystaan meel naadi oo isugu imaadaan oo ay ku sheekaystaan ay ku la fuguraan arrimaha
sidii community-ga looga saari lahaa xaaladda hadda ay ku jirtay marka sidaasaa waxay keentay horta aasaaskii in naadigii uu isku bedelo marka hore naadi islaam la rabo in laga dhigo kadib wuxuu isku bedelay naadi siyaasad urur siyaasadeed su-aashaadii cabdulaahi ciise allah u naxariisto sida taariikhda ay qortay waxaa jirtay in uu safar u baxayay safarkii waxaa dhacday in cabsi ay keentay la yidhaha la talaalo sida aan ku daawanay weliba waan daawaday ninkii shaqsigii cirbadaas isku duray soomaaliga ahaa kheyr allaha siiyo iyadoo laga cabsi qabay in la dilo sida taariikhda ku ogtihiin waxaa jireen dad badan oo Soomaali ah oo waqtigii dadku taariikhda Soomaalida waa dad taariikhda runtii aan qorin laakiin dad ka sheekeeyo waxaa jirtay ilaa 1910kii iyo 1920meeyadii waqtigii sayidka markaas ku soo dhawaato dad badan oo ka soo horjeeday arrimaha reer galbeedka oo saasoo kale loo duray oo la sumeeyay ama la dilay marka taariikhda Cabdulaahi Ciise waa taariikh jirto in shakhsigaas oo naftiisa u bareeray oo asaga isgeeyay oo isduray bulshada Soomaaliyeed haddaan dib ugu noqdo maanta xaaladda joogto aniga waxaan runtii aan ku micnay aan ku dheeraade SYL wuxuu ahaa halgan bulshadeed halgankaas bulshadeed waqtigaas waa lagu guuleystay waxaan qabaa bulshada Soomaaliyeed ama Australia ha joogto ama Europe ha joogto ama North America sidoo kale ha joogto ama South Africa ha joogto meel kastoo joogto bulshada Soomaaliyeed waxaa laga rabaa halgan kaas lamida oo ay ku galayaan naftooda iyo dadkooda shacabka Soomaaliyeed qurbaha joogo wuxuu u baahan yahay halgan caruurtan meelaha lagu dhalaayo qurbaha waxay kaaga baahan yihiin mas'uuliyada ku saaran caruurtaada inaad ku adkaysid islaamka waxa foolxumo ah runtii naxtina markaad la kulantay caruur Soomaaliyeed xabeebo oo aanan diinta aqoonin because waalidkii aanan wali geeynin meelihii diinta oo hadhow markuu dib ku dhacana waalidkii oo community-ga imaanay marka waxaan ku waalinahay ama dib markuu dhaco waxa ugu hortii kartaa awlaadiina geeya masaajidada geeya meelaha ay diinta iyo akhlaaqda iyo aadaabta ku baranayaan bari ka maalin jid fiican ay idin qaado doona hadduu Ilaahay ugu talagalay waa tahay cabdinaasir cali axmed bahaaj axmed cali ilyas xayuuke mar kale anuu idinkaga mahadcelinaya dhammaantiinba fursadan qaaligaadna siiseen iyo weliba munaaqashadan aan nagala qayb qaadateen SYL Somali Youth League iyo weliba xurriyadda iyo inta laga soo maray bal aan u yara jaleecno xagga iyo dumarka ama hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan ogsoonahay Xawataako xilli xeerka ay ka soo qaadatay xurriyadda Soomaaliyeed iyadoo qof dumar ah inay haddana hantideedii dhan ay ku beeshay iyadoo welibana markaa cunug yar oo saqiira dhabarka ku sidatana sida taariikhda ku cad ay falaari kaga dhacday iyadoo weliba statue ama astaan iyadoo ku mutaysatay arrinka markaa dadka lagu tusinayay in aan loo kala harin halgankaas waxaan wada ogsoonahay sidoo kale dhagax tuur in isaguna haba yaraatee dhagax lagu tuuray iska daa in wixii la heli karay markaa isagu agab ahaa in xitaa dhagax loo isticmaalka gumaysiga taa waxay ku tusinaysaa inaan loo kala harin balse aan xogaa yara dul istaagno Xawataako iyo halgankii xorriyadda Soomaaliyeed dumarku heerku markaa iyagu ay ku lahaayeen ama gacantii ay ka geysteen waxaan ku hormaraya Bahaaj dad badan waxaa jiray dhagax turka actually ani ma ka warrami karo laakiin goobjoog ma ahayn laakiin sida taariikhda ay qortay waxaa jiray dad badan oo la jiray gruubada sida Europeanka ama Westernka marka dhagax tuur iyo Xawataako dad waxay ahaayeen Soomaali ah oo ka mid ahaa dadkii dhagax tuurayay oo ku tuurayay dadkii oo maaragtay Westernka waa tahay bal markaan aan u wareego shaqaale weli waa su-aashiyadii Xawataako iyo weliba heerkii iyo ay ku lahaayeen dumarka Soomaaliyeed halgankii xornimadoon Xaawo Cusmaan Xawataako waxay ahayd ana ka mid ahayd dumarkii Soomaaliyeed ee aad iyo aad uga dagaalamay dhibaatooyinka ay u geeyeen gumaystiga Soomaaliya halgankoodii taariikhda waxay ku cadeysay inay ahaayeen dad kaliya ma ahan maalinka Xawataako dagaalka galeysay balse dumarka Soomaaliyeed waxay ahaayeen dad la garab taagan ragooda ha ahaato caanaha dhiig joojintii wixii oo dhan mar walbana way daba taagnaayeen oo waa mid aan la hilmaami karin balse waxaa astaan ahaan ama mar kasta oo la xasuusto Xawataako qof kasta oo taariikhda Soomaaliya wax ka yaqaan wuxuu garan karaa marka inay dumarka Soomaaliyeed ahaayeen dumar aad iyo aad uga dhiidhiyay dhibaatada ku hayaan dadka Europeankii ahaa gaar ahaan Talyaanigii Ingiriiskii soo weeraray wadanka dhibaatadan u geystay waa tahay
bal inta aanan ka bixin xawataako oo aan jecelahay xawe Cusmaan iyo waliba rag kale dad kale fara badan iyaguna dumar iyo hablo fara badan oo Soomaaliyeed dhibaato ay ka soo gaartay qaarkoodna naftoodii ku waayay hay'adda iyadu caan ku ahayd marka laga hadlayo hooyooyinka Soomaaliyeed ama dumarka Soomaaliyeed oo iyagu ka qayb qaatay halgankii xornimadoonka Soomaalida balan ku laabto Ilyas iyo bal wax intuu ka yaqaan xawataako wax yar raba inaan ku daro xawe Cusmaan xawataako waxay ahayd gabar Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo u geeriyootay marxalad dhacday 1948 saa hadda sheegaynay ururka SYL waxaa la aasaasay 1943 markii ururka SYL la aasaasay 1950kiina Soomaaliya wuxuu galay 10 sano oo xukuumad maxamiyad markii intaan 10 sano la gaarin ayaa dawladihii afarta ah ee wadanka xukumayay adduunka markaas xukumayay oo commissionka ahaa four state commission laha ayaa waxay soo direen ergada waxay imaadeen Muqdisho kuwaasoo dhindhindheynay in Soomaaliya xorriyad la siiyo iyo in loo dheereeyo marka ergadaas markay imaateen 1948 ayay wafdigii waxay yimaadeen magaalada Muqdisho wafdigii markay magaalada Muqdisho yimaadeen banaanbaxyo iyo rabshado iyo dagaal ay Muqdisho ka dhacay oo runtii ay qayb weyn ka qaadatay Xaawi Cusmaan Allah u raxmado Xaawi Cusmaan waxay ku geeriyootay marxaladaas oo dhacday 1948 sanadka markuu ahaa 1970kii ayaa dawladda Soomaaliya ee markaas jirtay ee kacaanka ahayd waxay u dhistay taalo oo taaladaas oo ku taalay ka soo horjeedkii maktabadii qaranka dhinacana ka xigta tiyaatarka Xaawi Cusmaan taaladaas runtii taalo caan ahayd oo dadka Soomaaliya iskuulaad ka soo dhigtay aad u yaqaaneen oo ku xasuustaan inay hooyo Soomaaliyeed u soo halgantay kuna dhimatay iyadoo maaragtay ka qayb qaadanaysay waana jiraan maanta hooyooyin badan oo Soomaaliyeed sida Xaawi Cabdi inta noogu timid maamooyin badan oo runtii dhihi karno qayb weyn ay ka soo qaateen maamooyinka halgankii Soomaaliya watahay saaxiibada aanu jecelnahay hadii aynu ka sheekeynay SYL Somali Youth League wax qabadkoodii iyo waliba halka ay gaarsiiyeen xorriyadii Soomaaliyeed iyagoo markaas suray calankii buluuga ahaa ee xidigta ama dhabarka iyo markaas sugan quruxda badan la arkaysaan maxaa idin la gudboon ama nala gudboon dhalinyaro ahaan maanta aynu taagana والله gunaanadkii aniga waxaan rabi lahay horta inaan ana minute ku soo koobayo SYL waxay la dagaashay gumeysi maanta Soomaaliya waxa ka jira gumeysi ka duwan oo ah wadamada dariska Kenya iyo Ethiopia waxaan qabaa in Soomaalida ay indhaha kala qaado qaybinta ka socota ee wadamada dariska gobolkan Washington and deganaha Seattle dhowr kun oo Soomaaliya degan waxaan qabaa in halgan inta ka sameeyno halgankaas oo ah in dadku Soomaalida ay midoobaan inay iska dhaafaan qoqobka inay iska dhaafaan waxyaabo ugu yaabka badan waxa waaye waa la isku lugoob dadka Soomaalida waa isku ayagii ninba ninka qolada kale lugooy marka aan isku lugoobin aan ka shaqeyno insha Allah taala sida u midoobay lan gacmaha isqabsano nin walba dhinacaaga ka qaba community-ga sida horumar loo gaarsiin lahaa aniga waxaan qabaa in waxyaabihii aan ka baranay ama ay hor u soo sameeyeen SYL aan ka qaadano halkan ay tahay dadka u istaagay xilligaasi in ay maaragtay u horseedaan guusha aan gaarnay oo ah inaan ka guuleysanay dadkii na gumaysanayay waxaa sabab u ah dhalinyaro marka wadan ma jiri karo haddii dhalinyaro aysan jirin marka dhibaatooyin weyn ayaa wadankan hadda aan joogna naga haysta gaar ahaan dhalinyaradeenna haysta so haddii ay tahay in aan maaragtay isbedelkii dadkaasi ay keeneen annagana keenno waa in aan sameyno wax walbo aan ku badbaadin karno dhalinyarada waqtigan jirta dhalinyaradeenii aad bay u habsaameen dhibaatooyin badan ayaa ka jira maxay ahaydey haddii la eego jeelasha iyo meel walba ayaga u badan marka programyo aan ku badbaadin karno waa inaan sameynaa waa inaan xoogga saarnaa qoom haddii la rabo inay baaba'aan dhalinyarada laga qabtaa marka dhalinyaradeenna way baaba'san yihiin sidii aan maaragtay aan arrintaas waxaa ka qaban lahayn waa inaan sameynaa taasi ayaa noo ah mid ku dayasho leh ani ra'yi ahaanteyda waxay ila tahay in oo aan ku dayano dadkii usoo halgamay Soomaaliya SYL aan badbaadino sida Axmed sheegay aan badbaadino youthkeena sidaan u badbaadin karnaa waxyaalaha ugu horeeya waxa horta afka Soomaaliga uu dhumi rabaa soon will disappear
annagoo dhan dadkii waaweyn xitaa waa ka dhumaya afka Soomaaliga marka inaan ku dadaalno waaye aan u sheegno sida community-yada inay class xitaa at least oo youth-ka ay once a week amal maaragtay ay afka Soomaaliga horta inaan soo celino iyo dhaqankeena then that's I think waxaan umaleynaya arintaas arin oo very important inay tahay bismillah horta dunida guudkeeda dadka ku nool mostly waxaa dhibaatooyinka faraha badan ee ku dhacan waa dhalinyarada sidaan hore uga soo hadalnay Israel waxay dareemeen dhalinyaradaas dhibaatooyinka haysto in haddii uu gumeysiga la sii joogo ay dhibaato ku tahay laakiin waxay balan gareeyeen marka ayaga waxyaabo aad iyo aad u fara badan arrintu si kastaba ha ahaatee xadeertaan marka xilliga aynu joogno saddex arrimood madeesa qofka bini aadanka oo waxba ka qaban waa dhibaato weyn sida luuqadda diinta iyo dalka waa sida my brother baa xaaji sheegoo kale luuqadda way sii dhammaanaysaa because annaga hadda generationkeena waxaan ku hadalnaa afka Soomaaliga marka la fiiriyo 75% kuwa naga yar waa 50% kuwa naga sii dambeeyana waa Allah u naxariisto maxaa yeelay meeshaas waxaa arkaysaa inqiraad luuqa inay ka dhacayso yani luuqadda inay sii dhammaanayso tan kale qofka duusan luuqad lahayn way adag tahay inuu diintiisa fahmo horta maxaa yeelay wax diinta fahansi waa luuqadiisa because luuqadda iyo diinta way mar walba isgarab socdaan qofka haduusan luuqad lahayn diinta waa dhib midda saddexaad aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye anoo soo gaabinay hadalkayga dalka yacni dadka inay ogaadaan dalka inay ayaga leeyihiin inay ogaadaan dalkan inay kaga dambeyn doonaan dad kale balse ay wax usii dhisaan sidii raggii anaga naga horeeyo kale se wax u qabteen oo kale maxaa yeelay waxaa arkaysaa hadda dadka ku dhimanayo haddii dib aad u eegtid badaha waxaa la yidhaahdaa haddii raydsiga haddii la qalajiyo waxaa laga helaa lafa Soomaali ah maxaa yeelay inta ku dhimata kaliya saxaraha Afrika iyo Arabianka iska badaa intaas yacni waxaa muhiim marka inaan ogaano inaan nahay dad bini aadan ah oo meel ku nool rabana inay horumar wax gaaraan waa inaan mar walba ogaanaa marka danaha ama hadafka aanu leenahay asaabaak ahaan waxaanu jecelnahay marka saddexda arrimood oo ugu muhiimsan arrin inaan wax ka qaban inay tahay dadku inay yihiin horta bini aadan inaan u sheegno dadku wax soo qabta waxay u keeneen inay sii wadi karaan labadaas arrimood waa arrimo muhiim ah arrin inaan mar walba kala hadalno wabillahi tawfiiq horta hadal badan haan ma buuxisho waa la hadlay marka waxaa loo baahan yahay in oo lagu camal fala waxii aan halkan ku falanqeynay maanta SYL way soo guteen xilkii maanta dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan xil baa saaran imsaa dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo badweynta Hindiya maalin kasta ku daadanta haddii aad aragtid qaxootiyaasha amaba wadamada daraska ah imsaa Soomaaliyeed oo lagu dilaa oo lagu maxay ahayd lagu xumeeyaa aad bay u badan tahay lama soo koobi kara waxaa xasuus mudan oo aad naxtin u leh dhalinyarada Soomaaliyeed oo si wuxuushimida ah loogu dila wadanka South Africa qaxootiyaasha Kenya meel kasta oo joogaan Ethiopia Yemen halkasta Sacuudiga war dadka Soomaaliyeed adiga ayaa u maqan u hiili dadkaaga u hiili afkaaga hooyo meel kasta oo joogtid waa inaad xil iska saartid cid kale ha ku halaynin halka aad taagan tahay maanta waa inaad ficil ka muujisid action speaks louder than word marka taa waa in aan ku dhaqaaqna Soomaalida waxa aad u qaban kartid u qaba meel kasta aad joogtid ururka SABAC Somali American Public Advocacy Committee waxa aan xooga saaraynaa in aan isku xirna Soomaalida state Washington joogto si aan ugu adeegi lahaynay danaha bulshada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh watahay daawadayaal saaxiibayaal ama saaxiibadaanu jecelnahayo meel kastoo aad naga daawanaysanba mar kale aadinku aad iyo aad ugu mahadsan waxaanu soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkeenu ugu talagalnay SYL ama Somali Youth League ama maalinta dhalinyarada ama maalintii xorriyadda Soomaaliya ama SYL qofba sidoo yaqaano inta aanan hadda barnaamijka aanuna soo afjarin ayaan bal waxaan jeclaystay inaan ku wareejiyo Ilyas Xayuke si uu markaa isagu nagu qada dhigo tixgabaya oo isagu markaa abwaan Soomaaliyeed u tiriyay gooryadu haatan laga joogo 70 sanadood ku dhawaad bal isagu markaa inuu noo gud maro mahadsanid xabeeb xaaladda Soomaaliya hadda ku sugan tahay waxay ku jirtaa exactly lyrics-ki oo anthemka Soomaaliya markuu abwaanka Soomaaliyeed ee heesta calanka Soomaaliya sameeyay anthemku wuxuu yiri tira ari oho dhaxalba sideedii leedin soo tubayo
ninba 10 la meel marayo cadowgin idin taliye Soomaali intaas kaliya haday fahanto waxaan aaminsanahay inay midnimadoodii meel fog aysan jirin watahay saaxiibadaan u jecelnahayo waxaanu intaas ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii qiimaha lahaa in ugu talagalnay maalintii SYL ama maalinta xurriyadda Soomaaliyeed ama maalintii SYL Somali Youth League oo aanu ku tilmaami karo inay iyadu ahayd ururkii xornimo gaarsiinta Soomaaliya ama xorriyadda Soomaaliya gaarsiiyay dhalinyarada wada arkaysaan iyagu markaa u soo labistay ama iyagu goobta u soo fariistay maanta inay ka qayb qaataan barnaamijkan qiimaha iyo qaayaha isagu mudan meel kasto adduunka dacladiisa kala duwan aad ka daawan doontaan waxa iyagu qayb ka yihiin SAPAC ururka lagu magacaabo Somali American Public Advocacy Committee oo iyagu runtii wax badan ka qabtay gudaha magaalada Seattle Washington iyo waliba daafahedaba haddii ay noqon lahaayeen Soomaalida iyagu markaa guriyeynta u baahan kuwa iyagu markaa shaqada laga caawinayo qaabka doorashooyinka uga qaybgeli lahaayeen iyo kuwa iyagu markaa ku dhibaataysan xabsiyada iyo kuwa dhibaatooyinka immigrationku markaa iyagu ay haystaan haddaba SAPAC iyaga ayaa looga fadhiyaa bal inay iyaguna markooda ay dhexda u dubtaan sidii SYL Soomaaliya ugu istaagtay iyagu maanta run ahaantii iyagu naga aqbalay invitationkan ama sidaan ugu yeeranay ay markaa iyagu nagu soo istaageen waxaan mar kale idinkaga mahad celinayaa dhammaantiinba Ilyas Axmed Bahaaj Shaqaale iyo Cabdinaasir sida wanaagsan ee barnaamijkan ugu soo qayb gasheen hayeeshii intaanu dib u kulmi doono daawadayaal saaxiibayaal waa bahda Somali National TV Som TV oo idin leh sida iyo nabadgelyo intaanu dib u kulmi doonana waxaan idin leenahay badbaado Allah arag farxad leh iyo samo ku kulan kare insha Allah